Baraawe oo saacado ka hor ay gaareen ciidanka Haram Cad ee booliska Soomaaliya horena ay ugu sugnaayeen ciidanka Koonfur Galbeed Soomaaliya xiisad dagaal ayaa ka taagan oo difaac ayaa lagu kala jira ciidamadii Haram Cad ee gurdu halkaasi la geeyay suuragal uma ahan magaalada gudaheeda inay sii galaan oo ilaa hadda garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe ay ku sugan yihiin haddaba maxaa ka socda Baraawe xaaladda siyaasadeed ee Koonfur Galbeed iyo tallaabooyinka ugu dambeeyay ee uu qaaday madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaan muuqaalkan doonayaa inaan idinku soo koobo ee soo dhawaada daawadayaal nagu soo biira muuqaalkana meel fog noo gaarsiiya saacado ka hor ciidamo ka tirsan Haram Cad ayaa la geeyay degmada Baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Baraawe waxa hore ugu sugnaa ciidamo kala duwan oo dabcan qayb ay ka ahaayeen kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed iyo sidaas oo kale ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ciidankii Haram Cad ee la geeyay Baraawe waxaana loo xaqiijiyay in ilaa hadda ay ku sugan yihiin aeroboortka magaalada Baraawe oo dabcan diyaarada ay ka dejisay laakiin gudaha magaalada waxaa la soo sheegayaa in ay difaacyo uga jiraan ciidan ka amar qaata madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen oo dabcan tiradooda 200 ee kor ay u sii dhaafaysa sida saraakiisha amni ee nala hadla ay noo sheegeen ciidamadan waxa ay ka warhayaan xiisada ka dhaxaysa maamulka iyagoo ay hoos tagaan iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada dawladdu saacadihii la soo dhaafay degmada Baraawe ay ka sameeysay iyo waliba saraakiisha isbedelada kala duwan lagu sameeyay taas ayaa keentay in ay si toos ah ugu xirmaan magaalada Baydhabo isla markaana ay isku dayaan magaalada Baraawe oo iyagu ay sanadihii la soo dhaafay ku sugnaayeen in ay markaasi amnigeeda si xaqiijiyaan oo gudaha magaaladana difaacyo ay ka xirtaan saraakiisha aan la hadalna waxay noo sheegeen in ciidankii Haram Cad ee maanta la geeyay halkaasi ay ilaa hadda garoonka ku xayran yihiin gudaha magaaladana aanay u suuragal ahayn inay galaan maadaama haddii ay tallaabo hor u qaadaan ay suuragal tahay in rasaas iyo sidaas oo kala dagaal rasmi ah ay la kulmaan haddaba arintan waxay imaanaysaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen uu garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo u diiday in ay tagaan wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo dabcan xitaa ay suuragal u noqon weysay in magaalada Baydhabo ay geeyaan ciidanka midowga Afrika ee AUSOM Soomaaliya kuwaas oo uu markaasi gudoomiyaha Aadan Madoobe kulan gaar ah la yeeshay laakiin diyaaradda ciidamadiisu ay saarnaayeen markii hawada Baydhabo ay tageen dib markaasi loo soo celiyay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen waxa muuqata tallaabooyinkan uu qaaday in ay banaanka keenayaan sida uu ugu baraarugsan yahay isku dayada dawladda federaalka ee Soomaaliya haddii dawladda Soomaaliya ay qaadato go'aanka dagaalka la xiriirana dhankiisa uu diyaar yahay ciidanka ku sugan Baraawe oo dabcan Koonfur Galbeed ee markaasi ka tirsanna waxa la leeyahay waxa taliye u ah sargaal ah taliyaha booliska ee saldhigga degmada Baraawe kaas oo dabcan kamida dadka deegaankaas ka soo jeeda muddo dheerna ee markaasi ka howlgalaya degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose haddaba dhaqdhaqaaqyada iyo sidaas oo kale xiisadaha dagaal ee Baraawe iyo guud ahaan Koonfur Galbeed laga soo tabinayo wixii macluumaad ah ku soo kordhay halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa haddii Allah wadlo raali ka noqdo